leeg bay ku yeelan kartaa ardayga haddii uu guriga marka uu tago waalidkii hooyadii mise aabihii ayna ahayn qof ama cid quraankii kariimka ah akhrinaya diinta islaamka barashada ku mashquulsan amaba laga yaabo waalidkii inuusan ahayn waalidiinta kamid ahayn waalidiinta masaajidka ku tukada oo ku xiran canuga sidee bay u saameyn kartaa in ay تحفيظ القرآن كما القرآن كحفظين تيسا أي أفضلاته معناها ما لقي يا بعنوجي إنه أوقاته أبيوز جرا ما أوقاته وحن إن والدين تي يجي إن الربين إن السمايان أين نحين وح يجي السمايان وأرضي أما عنوجي وما تقنا وح لو هو لو قص بينه تان صحوي بارك الله فيك قدم كأسيا وقدم مهمة هدي عن والدك حق سفير والدك والله مد وحويان مقرن ساي diintii garan hayo oo ka war hayo oo masaajidka ku tukan hayo ka war qabo oo dacwadii diinta ku jiro oo sadaqadii masaajidka iyo maarta horiis ka war hayo iyo mid waxa jiro ma garanaysaay masaajidkana shuqul aan ku lahayn diintina aqoon weyn baan u lahayn laga yaabo kitaabka akhriskiisa iyo maarta farbar iyo midna dugsiina la geenin horta ilaahay subhanahu wa ta'ala dadku isku mid kama dhigin arintaas iyada marka door bay ku leedahay ilmaha hooyadiis ay quraanka ka dhageysanayso oo ay u marinayso oo ay caawinayso iyo ilmaha kale oo aan haysan arrinkaas ku mid ma aha marka kaan salaad tukanaynin waalidkan salaad tukanaynin oo isaga maartay diintii aan shuqul ku lahayn ilmihii ka saaba haleynay waayo waxa la yiraahdaa ilmaha saddex baa tarbiyeysa mid waxa weeyaan waa inaad meel ma garanaysaa geeso ugu tarbiyay oo maartay mujtamac iyo bulshadii iyo dacwad iyo diin meel ka socota aad geeso midna waa uswo iyo qudwo oo ayaa noqotay waa ilmihii guriga markuu tago iyo waalidka haday yihiin kuwa qudwo uswa way caawisa hadiiba uu gurigi isaga qodobka isaga yahay uswada uu waayo ilmaha isaga sidoo ku badbaado adkaanaysa hadii aabuhu yahay mid salaada aan tukanaynin hooyadu ay tahay amaba yihiin guri 24 hours TV ka daaran yahay laga daawanayo filmaan laga daawanayo maartay movieyadan maartay ka socda meesha ama cajalada loo soo karinayo oo loo daarahay ilmaha isaga waxa weeye qulubtiisa way qalalaysaa عشر قرآن ما برن كرو المهنا لما سعون كلا كلانتو مركب وحيابها مارتي مهم كأ وإن والد أسوة نقدان أسوة معنا وحنا كودا كوال وجود ضيان كرينا نقدان توصل إيجا هدي يقلوا عنهن المهودنا إيجا سبب نقول كرا أبوه تسجار كعبو ويلكون برد سجار كعباية هدي أبوه وصلاة كتو ويلكون برد صلاة وسهرانية مركب إلهي سبحانه وتعالى إن هنقدقو إن مارتي والد ونكسن وتوصل عاوية المهودا ومارتي يكون ضيان هنقدقو. أوكي شخص هاش كلام كويدينا أيوه عروضة waxay dhigtaan public schools public school kana system gooni u isticmaala oo waxbarasho ah masaajidkana ma taqaanaa system caruurta quraan loogu baraajir marka canugii waqtiga inta badan wuxuu ku soo dhameystaa schoolka sax way inta masaajidku uu joogo quraanka uu baranaa waqti yar waay marka canuga sidoo soo wadi karaa waqtigan maartay hawshan schoolka iyo hawshan ma taqaanaa barashada diinta islaamka بارك الله فيك سؤال مش كجرتا ددكو عروضta dhalay ilmahooda meeshan dugsiga yimaado ayaa ka warqaba dhibka leedahay waa sax ilmihii iskuulka markuu yimaado oo uu qabaysto oo uu maartay qada cuno oo uu diyaar garoobo dugsiga loo soo qaadaya laakiin mararka qaar kood waxa dhacda ilmuhu inuu waqti yar oo u dhaxay inta dugsiga iyo u dhaxaysa maartay dugsiga aan la keenin inuu waqti yar ka helo oo homework kaga shaqeysan karo waxa dhici karta dugsigu saacadaha uu soconaya inay tahay ilaa maartay 8 oo maartay ilaa maartay 3 saacadood buu tirada maartay ku eegyahay kadibna markuu ilmaha noqdo wuxuu haystaa saacad 2 saacadood oo kale intuu intuu saxan ka hor uu homework ka shaqeyn karo arintaas iyada ah marka waa sax weeyaan arrintaas ku jirta weeye ilmuhu way kala fahmo badan yihiin ilmaha qaar waxba uma dhibaan ilmaha caawinta u baahan weeye ilmaha xoogaa maartay dugsiga markuu yimaado dhibka maartay ay ku imaanayso marka ka isaga waxa weeyaan waxa fiican in uu helbar uu helo maartay homework maartay wax ka helbar garay inuu helo ama maartay iskuulka inta dugsiga la keenin ha soo maartay arintaas iyada ha soo helo ama markaas kadib dugsiga markii uu ka baxo ha helo labadaas iyada ah taas maartay aad wala tarin lahaa insha Allah jazakallahu sheekh ardada cilmiga waa laba nooc midna waa maadi midna waa diini صح way rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri mataqaana in la barto cilmiga waa mataqaana farad buu ku yahay inuu bartaa marka ka waran qofkii mataqaana isagoon diintii aan baranin quraankii aan meelna iska saarin ama diintii una garanaynin intuu iskuul u dhameeyo oo jaamacad u tago
jaamacaddii laga yaabo in lacag deen uu qaato oo ribo uu wax ku soo barto qofkaas noloshiisa dambe maxay u dhibi kartaa صح وي waxay u dhimi kartaa arrinkaasi sax weeyaan horta culumtu waa sax u sheegtay culumna waa culum sharci ah oo islaamka iyo maartay ku tacalluqda iyo diinteena islaamka sidii loo baran lahaa taas iyada ah ayaana maartay asaasi ah midna waa mid maadi ah oo adduunka loo kaalmaysanaya islaamkuna uu u baahan yahay oo nolosha maartay xayaatada maartay muslimiintu way u baahan yihiin مثلا oo kale cilmiga caafimaadka oo kale waa cilmi loo baahan yahay teknolojigan hadda maarta la isticmaalayo waa culum loo baahan yahay muslimiintu inay qaar iyaga kamid bartaan waa loo baahan yahay culumtaas iyada ah ee islaamku u baahan yahay ee bashariyadu iyo horumar ku gaari karto baahida laga maarmaanka ihtiyaajaadka horta in islaamku barto waa laga maarmaan laakiin waxa laga hormarinay mar walba qofku waa in uu horta u yaqaano shariicada islaamka waxyaabaha daruuriga waa inuu garanayo مثلا oo kale hadduu san garanaynin wuxuu ku cibaadaysto haddii dembi uu kororsanaya waxa kale intuu barnay waqti ku luminayo waana la weydiin doonaa baritu taas iyadaan shaki kuma jiro marka waxa weeyaan midka ku raacaya adduunkana maartay horta aan ku dayacaynin aakhirana ku anfacaya waa quraanka iyo maartay kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam haddii aad xifdiso iyagana way ku xifdinayaan ihfad illah yahfadka iyo nabiga kaleey salaatu wasalaam dardaarankiisii markuu dardaarmay ibn Abbas Soomaaheen macna waxa weeye quraankan hadaad xifdiso oo diintii iyo shariicada islaamka aad barato oo ku cibaadayso maartay aad dariiqada iyada saxda u barato ayadana waad ku badbaadaysaa oo adduunka intaad maartay joogto waxa weeye waad liibaani waxay ka xifdinaysaa maartay wax badan bay ka xifdinaysaa marka horumarka in diinta la hormariyo la barto inta daruuriga waliba gaar ahaan qofku waa inuu garanayo waxa la yiri dadkii maartay hore xataa maartay markii beecshiro u sameeynayo ilaa kitaabul biyuuc soo akhrista muusan gari jirin iska dhaaf maartay hadda waxa weeye salaadii baa jaahil laga yahay وعبادتي مارتش أفضل تنكس على سمين هي وقف كهداد ودي صلاة محاجة بيه ما قرنها يو ما قرنها يسوي يسود وحكوا أصحاب ما قرنها يان ما قرنها ساي حلاشي حرام تدتك ما كلا قرنها وهو حرام وهو حلال مركب وحاول يقف كإسقى أولى إنه مارت الدين إلهي سبحانه وتعالى وقت السيو أنا تصل مارت كلها لها ولا لها هذا القرآن كبرناها يانا مارت إن شاء الله تعالى يسكت ديان إن مارت معاني دي سي مارت يسكت ديان إن برتان إن شاء الله إلهي أوفض زي بارك الله فيكم sheekh su'aasha ugu dambaysa maxaad kula talin lahayd waalidiinta carruurtooda xaafadda ku haysto oo laga yaabo cunugii maalinkii 8 saac iyo in ka badan inuu iskuul ku maqnaado hadda dugsigan arday yar baa dhigato marka qofka doonaya cunugiisa inuu halkan oo dhaqankiiyo duwan diintiyo mataqaanaa aan ahayn diinta meesha ugu weyn diinta islaamkii oo dad badan oo gaalada u dhex degan yahay cunugii waxyaabo badan oo diinteena ayna ogoleen mataqaanaa uu maalin walba ishiisa ku dhacayso marka maxaad kula talin lahayd waalidkaas carruurta xaafadda ku haysto جزاك الله خيرا والدين ilmaha guriga ku haysta waxaan leeyahay waa aad iyo aad nicmo ka maqan nicmada ka maqan waxay tahay oo aysan garanaynin oo aysan maartay dareemaynin in meeshan iyada ay joogaan ay ka jirto khayrkan isaga hadda meesha aan dhex fadhina ciyaalkaas iyaga quraanka xifdinaya inay joogaan macallimiintaas iyaga hadiyaarka inay joogaan marka horta waxa weeyaan dadku iyaga ma baraarugsana wax socdana ma oga sidoo kale waxa garab socdo galaasyo oo maartay farbar ah oo ilmahan kuwan iyaga intay meesha soo gaarin loo soo maxaynayo marka waalidiintaasi way khasaareen waxaana ku khasaareen laba arrimood mid waa mid aakhiro ilaahay baa kala xisaabtami doona ilmaha ay dayaceen midna waa mid labaad oo ilmihii isaga ahaa oo jahliga iyo maartay baashi ku ilaaliyeen iyagana ma anfici doono oo ku khasaari doonaan khasaare adduunka ah ku dhici doono oo ilmaha ah oo ay ilmihii ka lumo oo uu ka raaco maartay ciyaal suuq iyo qashin waxaan raali ka hayn barito uu la keeno iyo iyaga oo maartay ma garanaysaa dhinaca kale aakhirana ay sugayso maartay kuleetiga lagu dhigi doono ilmahan isaga ah maartay meesha la keenay oo salaadii iyo soomkii iyo cibaadadii iyo diintii waxba aan ka garanayn oo guriga lagu haysto TV 24 hour daawanayo oo maartay channelada maartay saa u kala bedelahayo wax maadi ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala looga fogaanayo 24 hours daawanayo waxa weeyaan way ku khasaareen waalidiinta waxa kula talin lahaa intay goorgoortaa inay ilmahaas iyaga ah ilmaha tarbiyan karaan inay masaajidda keenaan xataa haddii aysan quraan barayn salaada cala alaqal maartay masaajidka inuu kusoo tukado oo cala alaqal mar ay keenaan oo bal diinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu wax ka barto oo masaajidkaas isaga ah waxaa jira dad hadda un ag mara xagga un ka wareegta dhinacana ka wareegta weligoodna ilmahooda uusan imaanin kuwa iyaga haddii maanta la yidhahdo war islaam maxaad ku og tahay waxba ma kama sheegi karaan waa xaqiiqo wey waana dhacday niman dhalinyaro oo hadda ayaan u taliyay sheegahayay oo la yidhi kaale tukada baa waxay dheheen baa la yidhi hadal cajiib waxa weeye meeshii laga rabay inay salaad tukadaan bay waxay yidhaahdeen yaanu tukanayna
horta aan u tukanaa markaas ilaahay baa u tukanaysaan ilaahay markaan wadankii joognay dadkii maartay nala baabi'inayay nala waxaynayay maxaa ilaahay noo caawin waayay kaniisadii baa ku shubtay ayagu ma oga magaaladii nala joogaan ciyaalkaasi waana la yaqaanaa hal iyo labana ma ahan ma garanaysaa marka kaniisadihii baa gacanta ku dhigay waalidkiina wuxuu ka ilaaliyay masaajidkan hadda isaga ah imanayaan marka kuwaasoo kala soo socda jiil cusub oo ciyaal kristana maartay barita noqon kara bilaa diin ah diin ma aaminsani dhahayaa soo socda marka yaa laga digtoonaada arrinkaa isaga baaraka allahu fiikum jazakallahu khayr sheekh aad baa u mahadsantahay jazakallahu khayr insha allah sheekh sidaynu ognahay cilmiga laba qayb ayuu kala baxaa mid maadi ah iyo mid diini ah midka rasuulka sal allahu alayhi wasallam wuxuu nagu yiri taalibul cilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslima waxa cilmiga in la barto la raadiyo waa waajib waxa uu ku yahay muslimiinta marka ka waran qofkii canugiisa intuu iskuul dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare uu dhameeyo jaamacad uu tago laga yaabo in jaamacadaas uu kusoo dhigto lacag riba ah oo mataqaanaa waalidkii isagoo raalli oga ah canugu inuu soo dhameeyo waxbarasho ayna ahaan mataqaanaa mid diini ah oo diintiisii noloshiisii adduunya iyo aakhiraba mid wax uga tarayso ka waran qofkaas mustaqbalkiisa dambe xataa haddii wax uu barto oo maadi ah noloshiisa dambe ma laga yaabaa in saameyn ay ku yeelato dayacitaanka uu dayacay cilmigii faradka ah oo islaamka iyo maartay ku tacalluqda iyo diinteena islaamka sidii loo baran lahaa taas iyada ah ayaana maartay asaasi ah midna waa mid maadi ah oo adduunya loo kaalmaysanaya islaamkuna wuu u baahan yahay oo nolosha maartay xayaatada maartay muslimiintu way u baahan yihiin مثلا oo kale cilmiga caafimaadka oo kale waa cilmi loo baahan yahay technology-gan hadda maartay la isticmaalayo waa cilmi loo baahan yahay muslimiintu inay qaar iyaga kamid bartaan waa loo baahan yahay culumtaas iyada ah ee islaamku u baahan yahay ee bashariyadu iyo horumar ku gaari karto baahida laga maarmaanka ihtiyaajadka horta in islaamka barto waa laga maarmaan laakiin waxa laga hormarinay mar walba qofku waa in uu horta u yaqaano shariicada islaamka waxyaabaha daruuriga waa inuu garanayo مثلا oo kale haduusan garanaynin wuxuu ku cibaadeysto hadee dambi buu kororsanaya waxa kale intuu barnayo waqti ku luminayo waana la weydiin doonaa baritu taas iyadaan shaki kuma jiro marka waxa weeyaan midka ku raacaya adduunkana maartay horta aan ku dayacaynin aakhirana ku anfacayo waa quraanka iyo maartay kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam hadii aad xifdiso iyagana way ku xifdinayaan ihfad ilaahi yahfadka iyo nabiga kaleey salaatu wasalaam dardaarankiisii markuu dardaarmay ibn Abbas oo maahayn macna waxa weeye quraankan hadaad xifdiso oo diintii iyo shariicada islaamka aad barato oo ku cibaadadayso maartay aad dariiqada iyada saxda u barato ayadana waad ku badbaadaysaa oo adduunka intaad maartay joogto waxa weeye waad liibaani waxay ka xifdinaysaa maartay wax badan bay ka xifdinaysaa marka horumarka in diinta la hormariyo la barto inta daruuriga waliba gaar ahaan qofku waa inuu garanayo waxa la yiri dadkii maartay hore xataa maartay markii beecsharo uu sameeyay ilaa kitaabul biic uu soo akhrista muusan gali jirin iska dhaaf maartay hadda waxa weeye salaadii baa jaahil laga yahay oo cibaadadii maartay 24 saac la sameeyay oo qofka haddaad weydiiso salaadii maxaa jabiyay ma garanayo ma garanaysa weysadu waxay ku asaxdo ma garanayaan ma garanaysaay xalaashi iyo xaraamti dadka ma kala garanayaan waxa waa xaraam waxa waa xalaal marka waxa weeye qofka isaga waxa awla u ah inuu maartay diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waqti siiyo antaasaan maartay kula talin lahaa walaalaha hadda quraanka baranayana maartay insha Allah ta'ala ay isku dayaan inay maartay macaanidiisi iyo maartay isku dayaan inay bartaan insha Allah Ilaahay u fududeeyo barakallahu su'aasha ugu dambaysa oo maxaad kula talin lahayd waalidiinta aan caruurteeda hadda kamid ahayn kuwa dugsiga dhigta waxa hadda aan u jeednaa ardayda dugsigan dhigata ha ahaadaan kuwa oo maalin walba yimaada shanta maalmood ama kuwa mataqaana sabtidii axadda dugsiga dhigto ka waran maxaad kula talin lahayd waalidiinta caruurtooda xaafadda ku haysto iyadoo caruurtan la ogyahay inay ku dhex jiraan biyo aan ahayn midii inaga aan ku soo kornay ama mid islaami ah halkan ay tahay meel ay u badan yihiin dad aan islaam ahayn canugii mar walba ishiisa ay ku dhacayso wax diinta islaamka ka soo horjeeda ama aan waafaqsanayn marka waalidiinta caruurtooda xaafadda ku haysto oo diin islaam aan baraynin ka waran ba midaasi maxaad waano u jeedan lahayd waalidiintaas جزاك الله خيرا والدين تا ilmaha guriga ku haysta waxaan leeyahay waa aad iyo aad nicmo ka maqan nicmada ka maqan waxay tahay oo aysan garanaynin oo aysan maartay dareemaynin in meeshan iyada ay joogaan ay ka jirto khayrkan isaga hadda meesha aan dhex fadhina ciyaalkaas iyaga quraanka xifdinaya inay joogaan macallimiintaas iyaga hadiyaarka inay joogaan marka horta waxa weeyaan dadku iyaga ma baraarugsana wax socdana ma oga sidoo kale waxa garab socdo galaasyo oo maartay farbar ah oo ilmahan kuwan iyaga intaysan meesha soo gaarin loo soo maxaynay marka waalidiintaasi way khasaareen waxay ka xifdinaysaa maartay wax badan bay ka xifdinaysaa marka horta waxa weeyaan dadku iyaga ma baraarugsana wax socdana ma oga sidoo kale waxa garab socdo galaasyo oo maartay farbar ah oo ilmahan kuwan iyaga intaysan meesha soo gaarin loo soo maxaynay marka waalidiintaasi way khasaareen
waxaana ku khasaareen laba arrimood mid waa mid aakhiro ilaahay baa kala xisaabtami doona ilmaha ay dayaceen midna waa mid labaad oo ilmihii isaga ahaa oo jahliga iyo maartay faashii ku ilaaliyeen iyagana ma anfici doono oo ku khasaari doonaan khasaare adduunka ah ku dhici doono oo ilmaha ah oo ay ilmihii ka lumo oo uu ka raaco maartay ciyaal suuq iyo qashin waxaan raalli ka hayn berrito uu la keeno iyo iyaga oo maartay ma garanaysaa dhinaca kalena aakhirana ay sugayso maartay kuleetiga lagu dhigi doono ilmahan isaga ah maartay meesha la keenay oo salaadii iyo soomkii iyo cibaadadii iyo diintii waxba aan ka garanayn oo guriga lagu haysto TV 24 hour daawanayo oo maartay channelada maartay saa u kala bedelahayo wax maadi ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala looga fogaanayo 24 hours daawanayo waxa weeyaan way ku khasaareen waalidiinta waxa kula talin lahaa intay goorgoorta inay ilmahaas iyaga ah ay ilmaha tarbiyan karaan inay masaajidda keenaan hatta haddii aysan quraan barayn salaada ala aqal maartay masaajidka inuu kusoo tukado oo ala aqal mar ay keenaan oo bal diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu wax ka barto oo masaajidkaas isaga ah waxaa jira dad hadda unaag mara xagga uu ka wareegta dhinacana ka wareegta waligood ilmahoodu san imaanin kuwa iyaga haddii maanta la yiraahdo war islaam maxaad ku ogtahay waxba ma kama sheegi karaan waa xaqiiqo weey waana dhacday niman dhalinyaro oo hadda ayaan u taliyay sheegayay oo la yiri kaalay tukada ba waxay dhaheen baa la yiri hadal cajiib waxa weeye meeshii laga rabay inay salaad tukadaan bay waxay yiraahdeen yaanu tukanayna horta yaanu tukanayna markaas Ilaahay baa u tukanaysaan Ilaahay markaan wadankii joognay dadkii maartay nala baabiinay la waxaynay maxaa Ilaahay noo caawin waay kaniisadii baa ku shubtay ayagu ma oga magaaladii nala joogan ciyaalkaasi waana la yaqaana hal iyo labana ma aha ma garanaysaa marka kaniisadii baa gacanta ku dhigay waalidkiina wuxuu ka ilaaliyay masaajidkan hadda isaga ah imanayaan marka kuwaas oo kala soo socda jiil cusub oo ciyaal kristana maartay barito noqon kara bilaa diin ah diin ma aaminsan dhahay soo socda marka yaa laga digtoonaad arrinka isaga barakallahu fiikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا إبليس من لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك الرجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلى من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم
جزءا مقسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. ضاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى إن تجهر بالقول وما بينهما وما تحت الثرى إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.